السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدن معمل كسلو باشين من راتوليس هويغا أغابka macdinta oo uga barateen inuu idiin soo bandhigo qalab tayaysan isla markaana la tijaabinayo programka loo yaqaano tusi tabsi ayaan ku shaqeynaa haddaba waxaan halkan ku haysanaa ama kugu tijaabin doonaa hortiina ku tusi doonaa insha Allah tacaala mashinta ayada ah ee loo yaqaano X-Pointer Max loo yaqaano waa waterproof runtii waa mashinta mataqaana aad arki karaysaan waxaan ku raahdaa waterproof sidaas oo kaleeto discriminationka ah waad arki karaysaan discrimination pinpointer tusaale kaleeto waa pinpointer ama aalad yar aad arki karaysaan iyada dhanba intaasay la eg tahay tusaale kaleeto gebigeedba waa 20 sentimitir weeye xagga dhirkeeda mashiin intaas la eg nidaamka kala sooca leh adduunka horey loogama isticmaali jirin kaliya waxay lahaan jirta mataqaana masuulta iyadoo cadad wax ku kala duwaysa runtii iyadoo intaa la eg screen leh waterproof oo biyaha la dhex gali kari sida biyo isa waxba ku saameyn ku yeelanayn modelkeedu hore uma jirin alxamdulilah adduunku waa iska talaabsanay maalinba meel buu heer buu gaarayaa haddaba mashiinta ayada ayaa inoo taala insha Allah tacaala iyadii baan tijaabo ku samayn doonaa runtii dadka aadka u daneeya macadinta waa mashiin aad ugu baahnaayeen hadday noqoto xagga mataqaana qaadashada oo macnihii wax culaysa aan kugu qaadanay sidaas oo kaleeto aad mataqaana muxuu ahaa si fudud u qarsan karaysid jeebkaada adiga ugu qaadanaysaa haddii mataqaanaa meel riski ah ku qaadanaysid aad bay u fudud runtii haddaba mudana macalin mashiintu waxay ka kooban tahay mataqaanaa kow manuritki oo kan ah sidaas oo kaleeto bahashan loo yaqaano maxaan ku rahdaa hooli mataqaanaa murtutahay tii lagu celinayo oo loo yaqaano magic holista ayaa loo yaqaano magic holista ayaa loo yaqaanaa waa runtii waa gal mucjiso ah gashaan mashiinta oo ku shidan ayaad gelin doontaa adoo ku xiranay xagga suunka meesha suunkaad ugu xiran doontaa insha Allah tacaala suunka ayaa halka ugu xiran doontaa kadibna mashiintii maadaama aad shaqo ku jirtid ayaad halkan gashanaysaa mashiintii oo ku shidan lacala automatically ayaad isbaqtaynaysa isdiminaysa marka halka gelisid mashiinada caadi aad u barateen kuwa ay wataan kuwa yaroo jilicsan oo mataqaana masuulta aan waxba saameyn aan ku yeelanayn way qalab bahashan ku dhex jira u ogolaanaya mashiinta inay iyadoo shidan hadii la geliyo mataqaana aamusto ama baqtiiso okay sidaas oo kale halka waxay noogu wadataa charger caadi ah ku shaqeynaysa mashiintan xagga waxay ku wadataa mataqaana masuultahay bahashaas loo yaqaano boorsakiyaha oo halka lagu xiri doono insha Allah tacaala halkaas baa lagu xiri doonaa halkanina waa furkii ama mataqaana masuultahay meesha ay kaga xirmi doonto waan sharxi doonaa insha Allah tacaala sidaas oo kale USB mataqaana masuultahay chargerka USB ga ayaa halkan mataqaana noogu jira oo lagu charger karin doona insha Allah tacaala aan soo laabto mashiintu ama mataqaana pinpointerka inta la eg runtii wuxuu la mid yahay saacadaha waaweynka ee mataqaana dhowrka $1,000 la gado ayuu ku program yahay yani waxa kala jeedaa waxa ugu muhiimsan oo mashiin bir raadis horta dahabka loogu talagalay dahabku maadaama uu bir yahay bira kaleeta ayaa mataqaana inta badan ku carqaladeyn kara ama la kulmi karaysa haddaba si arrintaas aad uga baaqsatid ayaa mashiintan waxay leedahay program u gooni ah oo mataqaana runtii unique ah halka screen ku wadataa halkan waa meeshii laga shidayay onteedii ofteedii waa halkaas sulkan ku hayo halkanina waa meesha mataqaana masuultahay codadka laga kala bedelayo programkii meesha laga setting gareynayo weeye wanas aashidatid marka bishintu shaqadeeda horaad uga bilaabaysaa sidaana u samaysan tahay halkanina waa meeshii aan ku sheego oo furka ahaa furka markaan furo tusaale kaleeto USB-gii mataqaana masuulta hoolkii USB uu galayay ama afkii chargerka uu mataqaana masuultahay galayay halkaas mataqaana masuulta kugu xiran marka mudana macaamiil screenkaas ay leedahay screenkan marka maxay ku soo bandhigi doontaa waxay ku soo bandhigi doontaa insha Allah tacaala hadda tijaabada arki doona hadii Ilaahay qaabka u shaqeynayso